abaal bara abaal buuxa abaal bud iyo dheeraada midba kiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni barnaamijkan hadda iminka martida aynu u nahay marka la eegana waa barnaamij taariikhda geli doona Soomaalina ay xusi doonto abwaana wuxuu yiri marwa gabyaaye abaal bara abaal buuxa abaal bud iyo dheeraada midba kiisa kaan ugu bedeli beerka ka ogsooni shirkadda Somtelna bulshada Soomaaliyeed waxay ugu abaal gudi doonto beerka ay ka ogsoon yihiin ayaanu leenahay soo saasmaa waa tahay intaas kadib ku shubo oo ku guuleyso marka la eego halku dhigaas ama ficilka ay sameeyaan teamka maamulka shirkadda waxay muujinaysaa in bulshadii kaliya aysan u iman in ay dhiig mirtaan ama ay wax ka qaataan laakiin taas waxay tusaale u tahay in bulshadana wax ay ka soo saaraan maadaama ganacsi ay u abuuran tahay shirkadda isla markaana bulshada ay wax ku celiyaan waa ka qaad oo haddana ku celi weliba dhanka kale marka loo eego mararka qaar waxaa arkaa shirkadda dadka abaalmarinta ay guddoonsiinayso inay yihiin dadkii ugu mudnaa in laga farxiyo ama la abaalmariyo oo waxaad dareemaysaa bulshadii dhaqaalaha ama martabada sare ka joogay dhanka dhaqaalaha waxaa moodaa in ay kaga badan yihiin dadka ku nasiibsanaya ama ku guuleysanaya gawaaridan qaaliga ah iyo bajaajyada iyo waxyaabaha la midka ah dad danyar ah oo meel ay uga soo baxayso hadiyada xilligaas la guddoonsiiyo mar kale ayaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan inkastoo ii suuragelin aniga dadkii mudnaa inay ku guuleystaan ka mid ahay laakiin insha Allah waan rajeynaa in nasiibku ii saamixi doono waxaan ku faraxsanahay inaan ku hadlo magaca suxufiyiinta Soomaaliyeed anigoo ah nin ka soo shaqeeyay saxaafadda 15 sano nin yar oo haddana weyn dhanka kale marka loo eego waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shirkadda Somtel oo jaanis ii siisay in boorkeeda soo istaago kadibna la hadlo bulshada Soomaaliyeed intaan hor fadhisa iyo malaayiin kale oo daawanaysa TV-yada kala duwan oo barnaamijkan oo si toos ah uga baxay guud ahaan shirkadda ayaa u mahad celinaya madaxdeeda iyo shaqaalaheeda oo saaxiibkay Cali Taaha uu ka mid yahay reer Suudaan isku ahayn hal jaamacad ka soo wada baxna Cali xiriiriyaha barnaamijka Cali barnaamijna waa yiraahdaa nin sahlan maaha waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo waxaa sharafi ah in ka soo qaybgalka barnaamijkan aan markaasi ahaado rafiiqiisa ama aan la socday musharax madaxweyne xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo xilal kala duwan ka soo qabtay siyaasadda Soomaaliya waxaa la karaa xildhibaanka waa halgamaa wax badan bulshada u taray marka loo eego inuu ahaa aasaasihii isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya marka loo eego bulshada baahiyaha kale ee uu u buuxiyo xildhibaanka kaliya siyaasi ma ahane waa nin ganacsada ah oo dadka ku dhiirigeliya in ay wax soo saarka dalkooda ka shaqeeyaan qeybaha beeraha wax badan kama sheegayo xildhibaanka taariikhdana iyada is qoraysa haddii hadalkan ku dheeraada Cali Waraal ahaa oo ujeeda inay soo dhawaanaysid waa sharfantihiin waa salaamantihiin dhammaantiin waxaa idin leeyahay dhammaantiin guuleysta waxaan rajeynayaa wajiyadan quruxda badan ee iga soo horjeeda in mid walbo ka mid ah maalin uu halkan gaari ka qaadan doono insha Allah waa maasantii. Assalaamu calaykum.